kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan saar subscribe notification-kana furo siday ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee soo gelino isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta cashigan wuxuu ku saabsan yahay special conversations oo wada sheekaysadeen khaaska ahaa ama gaarka ahaa waa Khalid Cabdiraxmaan Maxamed halkan waa Somali Online Academy la soco cashirkooda maysiran hadaba u baahnay barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weydin chance aad ku tagto school ama fasal hadaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran Okay, and how do you see if we discuss about hadaynu ka doono the difference farqiga between u dhaxeeya peace nabadda aan iyo colaadda hadaynu ka doono shaad aragtaa how do you see if we discuss about hadaynu ka doodno the difference farqiga hadaynu ka doodno ama the difference farqiga between u dhaxeeya peace nabadda aan iyo dagaalka peace nabadda aan iyo dagaalka farqiga u dhaxeeya ka doodno shaad aragtaa never mind waxba kama qabo ku never mind waxba kama qabo we can discuss that we can doodi karnaa we can discuss that we can doodi karnaa arrinkaas ama ka waan ka doodi karnaa farqigaas marka su'aal buu weydiiyay wuxuu ku which better kee ayaa wanaagsan to live in peace inaad nabad ku noolaato to live in peace inaad nabad ku noolaato aan iyo dagaal which is better kee ayaa wanaagsan to live in peace inaad nabad ku noolaato oo aan ama dagaal nabad iyo colaad kee fiican aad ku noolaato it's better waxa wanaagsan buu to live in peace inaad nabad ku noolaato it's better waxa wanaagsan to live in peace inaad nabad ku noolaato su'aal buu weydiiyay marka wuxuu ku why do you prefer that maxaad ku doorbiddaa arrinka ama maxaad ku dooratay inaad nabad ku noolaato why do you prefer that maxaad ku doorbiddaa ama maxaad ku dooratay inaad ku noolaato why do you prefer maxaad ku doorbiday to live inaad ku noolaato to live in peace inaad ku noolaato nabad maxaad ku doorbiday why do you prefer maxaad ku doorbiday to live in peace inaad ku noolaato nabad why do you prefer maxaad ku doorbiday to live in peace inaad nabad ku noolaato because wuxuu sababtoo ah peace nabadu is a site of progress waa astaanta ama shicaarka nabad waa shicaarka horumarkan ka wada because maxaa yeelay peace nabadu is a site of progress waa astaanta ama shicaarka horumarka and prosperity iyo barwaaqada you enjoy life waad ku raaxaysanaysaa nolosha you enjoy waad ku raaxaysanaysaa life nolosha waad ku raaxaysanaysaa well si fiican waad ugu raaxaysanaysaa when you live in peace markaad ku nooshahay nabadda nolosha waad ku raaxaysanaysaa ayuu ku yiri si fiican waad ugu raaxaysanaysaa halkaas inoo joogi doona cashirka maanta laga sheegay assalaamu calaykum ordaya dugsiyada u aada waxaan ordaya dugsiyada u aada inaan aqoon kooda saado dadkayga anfacay